Turkiga ayaa qorsheynaya inuu bisha Abriil dardar geliyo howlaha saaminta iyo qodista shidaalka ee badda madow iyo xeebaha Soomaaliya isagoo adeegsanaya maraakiibta tamarta ee sii kordhaysa si kor loogu qaado wax soo saarka shidaalka iyo gaaska. 10 sano ee la soo dhaafay, dalku wuxuu dhisay koox maraakiib oo casri ah si uu u yareeyo ku tiirsanaanta tamarta dibadda laga keeno. Ololihii ugu dambeeyay wuxuu bilowday 26 Maarso markaas oo markabka qodista ee Cabdulxamiid Haan uu bilaabay ceelkii ugu horeeyay ee sanadkan goobta Kandira 2 ee u dhow Kokali. bisha Abriil markabka Faatix ayaa la filayaa inuu ka bilaabo howlgalka ceelka Eflani kow badda madow, halka markabka cusub ee Kakribay lagu wado inuu qodista ceelka Curadkow ka bilaabo xeebaha Soomaaliya. Wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Albarslan Bayraktar ayaa sheegay in markabka shidaal qodistu ka bilaabi doono ceelka Curadkow oo ku yaal meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya. Turkiga ayaa sanadkan ku soo kordhay maraakiibta qodista, wuxuuna soo iibsaday kuwo cusub oo la kala yiraahdo Yeldemir iyo Kakribay, taasoo ka dhigaysa tirada maraakiibta qodista 6. marka la isku daro maraakiibta qodista iyo kuwa saamiya, Turkiga wuxuu hadda kaalinta afraad kaga jira caalamka marka loo eego baaxadda maraakiibtiisa. Meel muhiim ah, markabka Yeldemir oo lagu soo dhisay Kuuriyada Koonfureed sanadkii 2024 wuxuu u gudbay badda madow si uu u fuliyo howlgalkiisa. Markabkan wuxuu qodi karaa mool gaadhaya ilaa 1200 mitir, dhererkiisuna waa 228 mitir. Dhanka kale, Kakribay wuxuu u ambabaxay Soomaaliya bishii Febraayo, wuxuuna qodista ka bilaabi doonaa goobihii ugu horeeyay uu soo sahamiyay markabka Orog Rice. Kakribay wuxuu noqonayaa markabkii ugu horeeyay ee qodista ah ee Turkigu leeyahay oo ka howlgala dibadda. Dadaalka Turkigu wuxuu udubdhexaad u yahay goobta gaaska ee Sakarya, halkaas oo sanadkii 2020 laga helay kaydkii gaas ee ugu weynaa taariikhda dalkaas, 720 milyan oo mitir kuyubig ayuuna qodi doonaa. Markabka Faatix oo ah markabkii ugu horeeyay ee qodis ee uu Turkigu soo saara ayaa hadda ka shaqeynaya ceelka Göktepe 2 ee badda madow. Wasiirka tamarta ee Turkiga Bayraktar ayaa bishii Febraayo sheegay in Turkigu doonayo inuu soo saaro 500,000 oo foosto maalintii oo saliida marka la gaaro sanadka 2028. wuxuuna intaas ku daray in Ankara ay filayso inay labalaabto tiradaas iyadoo oo lagu gaarayo taas helitaano cusub. Hawsha qodista ceelka shidaalka waxaa ilaalin doona ciidamada badda ee Turkiga. Dhowr cutub oo ka tirsan ciidamada dalkaas ayaana la socday markabka. Qorshaha amni ee Turkiga ee badda Soomaaliya ka sameynaya wuxuu hoos imaanaya heshiisyada iskaashi ee hore u dhexmaray Ankara iyo Muqdisho. Qorshaha Turkigu uu shidaalka kaga qodayo Soomaaliya waxaa la sheegay inay ku saleysan tahay aragti ballaaran oo dhiirigeliyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasoo ujeedadeedu tahay in la yareeyo ku tiirsanaanta Turkiga ee tamarta dibadda laga keeno, in la kordhiyo wax soo saarka gudaha iyo isla markaana dhaqaalaha laga ilaaliyo cadaadis dibadeed. Dhanka kale, wasiirka tamarta Bayraktar wuxuu sidoo kale sheegay in Turkigu ka shaqeynayo inuu labanlaabo wax soo saarka gaaska dabiiciga ee badda madow sanadka, isagoo sii wada saaminta badeed ee xeebihiisa waqooyi. ayay sidoo kale Ankara waxay diyaarinaysaa inay howlgeliso Raraktar kii ugu horeeyay ee nukliyeerka ee warshadaha tamarta nukliyeerka ee Ayuko, taasoo la filayay inay si degdeg ah u bilowdo soo saarista koronto cusub, taasoo mustaqbalka bedeli doonta qiyaastii 10% baahida tamarta dalkaas. Hawsha qodista ceelku hadda way socotaa, waxay ku saleysan tahay xog sahamin oo la ururiyay sanadkii hore, waxayna qayb ka tahay qorshaha ballaaran ee Ankara ee lagu ballaarinayo howlaha sahaminta tamarta heer gobol iyo heer caalami.